السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين ملكستو الدنيا دافية كجوكتان كسو دوada برنامج كان محا عصفان كهندية inta badan barnaamijkan saaxiibada qiimaha badan inta badan waxaan update ka siinaa qodobada maalintaas taagan sidoo kale aflaamta ganacsiga sameynaa ku soo qaadanaa qeybaha dambana today instrument oo kale aflaamta aan kala daawadana waa ku soo qaadanaa sida daraaddeed maanta jimcaha qodobada jira ayaan soo qaadan doonaa saaxiibada qiimaha badan intaan gudo gelin barnaamijkeena hadda channel ku cusub tahay subscribe noo saar sidoo kale loo weynaa muuqaalka like noo saarto aan ku bilaabno qodobkeena kuwa saaxiibada in badan waxay soo weydiinayeen filimka joog waqtiga OTT lagu soo fasaxay sida daraaddeed hadda waa official saaxiibada qiimaha badan filimkan waxaa gacanta ku dhigtay shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Amazon Prime Video sidoo kale waxaa si official lagu dhawaaqay filimkan 23 bishan ku jirna July ayaa laga daawan doonaa bartaas Amazon Prime Video ogaada filimkan joog waxaa hogaamiyaalka saaxiibada qiimaha badan Fernando Kiara Advane sidoo kale waxaa door muhiim ah ku leh rogacdayaasha kala maamada lagu magacaabo Nito Kabori sidoo kale ninka lagu magacaabo Anil Kaborna filimkan door ay ku leeyahay sidoo kale ogaada filimkan waxaa producer-ka ninka lagu magacaabo Karan Johar sida daraaddeed hadda waa official saaxiibada qiimaha badan filimkan joog waxaa gacanta ku dhigtay shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Amazon Prime Video sidoo kale 23 bishan ku jirna ayaa laga daawan doonaa ciwaanada kale saaxiibada qiimaha badan maanta jiraan soo qaadan karna waxaa ka mid ah wiilka lagu magacaabo Kiran Barafram maanta waxaa la rajayn doonaa filimkiisa lixaad saaxiibada qiimaha badan in si official loogu dhawaaqo sidoo kale filimkan kaartada laga soo bandhigo sidoo kale filimka magaciisa laga soo bandhigay sida hadda shaac laga qaaday ogaa saaxiibada qiimaha badan wiilkan lagu magacaabo Kiran Barafram culayso badan ayaa iska saaran sidoo kale wiilkan filimkiisa ugu dambeeyay tiyaatar loo saaray waa filimka lagu magacaabo Samatama inkastoo filimka saaxiibada qiimaha badan ganacsi ahaan uu ku guuldaray sida daraaddeed maanta waxaa la rajayn doonaa saaxiibada qiimaha badan galinka dam in filimkiisa lixaad saaxiibada qiimaha badan kaartada laga soo bandhigay sidoo kale filimka magaciisana lagu dhawaaqay sida daraaddeed wiilkan waxaan rajayn doonaa nasiib macaan maadaama saaxiibada uu guuldar leh maadaama saaxiibada qiimaha badan wiilkan guuldaradiisa ay badatay sidoo kale aflaamta ugu dambeysay uu sameynayna ay dadka ka wada qaadayeen ciwaanada maanta saaxiibada qiimaha badan waa iska badan yihiin ninkii amir qaana laba ciwaan oo baaweyn ay idin ka hayna saaxiibada qiimaha badan hadda waxa la leeyahay saaxiibada ninka lagu magacaabo amir qaana waxa la xiriiray ninka lagu magacaabo Karan Johar sidoo kale amir qaana wuxuu aqbalay inuu ka mid noqdo barnaamijka loo yaqaan Coffee with Karan season 7 saaxiibada qiimaha badan barnaamijkan waxa laga daawanaa barta loo yaqaan Disney Plus sidoo kale xukuumadda saaxiibada qiimaha badan reality show-ga aadka loo jecel sidoo kale dad badan ayaa inta badan ka daawad barta Disney Plus sidoo kale Karan Joharna barnaamijkan asaadaadiika waxaa leeyahay saaxiibada qiimaha badan amirkan factors ka caawinaya inuu aqbalo wax kale maana wuxuu rabaa in barnaamijka xayeysiin balaaran ugu sameeyo filimkiisa weyn lagu magacaabo Laal Sinjada maadaama ka saaxiibada qiimaha badan la daawan doono 11 bisha dambe Agosto la daawan doono sida daraaddeed waxa la hadda Coffee with Karan season 7 Amir Khan iyo gabadha lagu magacaabo Karina Kapoor Khan ayaa ka soo wada muuqan doona saaxiibada qiimaha badan sida hadda Bolod Hangama ay soo daawacayso xogta ugu dambeysay ay ka heshay sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Amir Khan waxa la barnaamijka waxa lagu weydiin doonaa filimkii soo socda Laal Sinjada saaxiibada qiimaha badan ayaa lagu wareysan doonaa sidoo kalena noloshiisa qaaska waxyaabo badan ayaa laga weydiin doonaa xagga ilmihiisa sidoo kale furiinka si xaaskiisa kala tageen waxyaabo badan ayuu saaxiibada qiimaha badan jalaagan daha ka qaadi doonaa ciwaanada kale saaxiibada qiimaha badan amir qan uu sameeyay intaas kuma eke ninkan saaxiibada qiimaha badan aniga waa ka qeylay ninkan xalay wuxuu ku sugnaa dhankaasi Hyderabad sidoo kale filimkiisa weyn lagu magacaabo Sinjada saaxiibada qiimaha badan rag oo awood badan fanka loo yaqaan Tollywood saaxiibada qiimaha badan ayuu ku cazumay sidoo kalena uu u daaray ragga saaxiibada qiimaha badan ka soo muuqda sidoo kale daawad filimkan waxa kamid ah shaqo u jeedaan meegasaarka ugu awood badan fanka loo yaqaan Tollywood ninka lagu magacaabo Jaran Jeef ayaa meesha ku sugnaa sidoo kale ninka lagu magacaabo Nagajurna Akinina uu joogo intaas kuma eka SSR Jamul xitaa saaxiibada qiimaha badan dadka filimka daawad ayuu kamid ah sidoo kale director lagu magacaabo Sukumarna asna martida meesha lagu cazumay ayuu kamid ah sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan Amir Khan shaqo ayaa ka go'an maadaama dhankaasi uu hadda Hyderabad oo ku sugan yahay xaleetona filimkiisa wuxuu u daar rag uga awood badan fanka dhankaasi talagoon ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxa kamid wiilka lagu magacaabo official saaxiibada qiimaha badan hadda waa official sida shaac laga qaaday filimkiisa Laafi gabi ahaan filimkan duustiisa uu soo gabagabay sida hadda inta badan majaladaha ay maanta saaxiibada qiimaha badan qorayaan ninkan sidaan ka warqabno wuxuu dooskooda filimkiisa weyn lagu magacaabo Laafi hadda waa official shaqada filimka saaxiibada waa laga farxashay sida hadda shaac laga qaaday sidoo kale hadda waxa la sameyn doona loo yaqaan aalada VFX kan filimkan lagu tayay ayaa la rajayn doona bishan dhamaadkeeda bilaha iyo bisha kale Agosto in la taayay filimkan sidoo kale ogaada filimkan Laafi waxa la daawan doona saaxiibada qiimaha badan 11 aan ku celiyay 15 bisha 15 September ee sanadkan ku jirna saaxiibada qiimaha badan ayaa la daawan doona sida daraaddeed ninkii fishaal shaqada Laafi waa ka soo farxay sida hadda shaac laga qaaday saaxiibada 24 saac ka hor waxa lagu dhawaaqay filimka lagu magacaabo Shamshera waxa la horgeeyay guddiga aflaamta Jansores filimkan saaxiibada waxa la siiyay shahaado lagu daawan la sidoo kale inta daqiiqo soconaana shaac laga qaaday
saaxiibada ogaada filimkan Shamshara waxa ku xifaaltami doonaan Ranbir Kapoor iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Sanjay Dutt ogaada filimkan waxa ku jirta actrice kwadka gabar lagu magacaabo Vaani Kapoor sidoo kale waxa qarash gareynaya shirkadda awoodda badan lagu magacaabo Yash Raj Film sida daraaddeed saaxiibada qiimaha badan filimkan Shamshara waxa la siiyay shahaado loo yaqaan US certificate ayaa la siiyay taasoo ka dhigan waa universal adult certificate qof walba da'diisa ay ka weyn tahay 12 sano ay filimkan daawan karo qofka da'diisa 12 sano ka yarta markuu filimkan daawanayo waxa qasabay saaxiibada qiimaha badan qof mas'uul ah inuu shaleemo u soo raac sidoo kale saaxiibada qiimaha badan hadda waxa shaaca laga qaaday filimkan wuxuu soconaa sida hadda diiwaan gashay saaxiibada qiimaha badan ku dhawaad 158 daqiiqo ayuu soconaa waxay u dhigantaa saaxiibada qiimaha badan 2 saac 38 daqiiqo ayay u dhigantaa sida daraaddeed filimkan Shamshara waxa la daawan doonaa 22 bisha aan ku jirnaa la daawan doonaa ama jamcada dambe kaabi nagu soo haysa ayaa filimkan saaxiibada qiimaha badan guudaan dalka Hindiya daafaha xalamkan laga daawan doona sida daraaddeed ninka lagu magacaabo Ranbir Kapoorna hamuun ayaa la qoomaa maadaama ninkan saaxiibada qiimaha badan muddo ku dhow 4 sano shaashada ka maqnaa filimkiisa ugu dambeeyay la daawadana waa filimka lagu magacaabo Sanju sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa filimkan Shamshara inuu ku qabsan doono saaxiibada qiimaha badan gudaha dalka Hindiya iyo daafaha caalamka bal markaan arrimaha box office ka ayaan soo qaadan doonaa saaxiibada qiimaha badan walle ninkii ahaa Rambo Thini filimkiisa saaxiibada qiimaha badan The Warrior wax laga firay wax la imaada waa kaafi kaleer filimkan The Warrior filimka lagu magacaabo The Warrior saaxiibada qiimaha badan xisaabta loo yaqaan laba godlaha ayuu maalintiisa kuwad ka tilaabsada daraaddeed filimkan ganacsigiisa guud maalintii ku sameeyay intaanan fiirin saaxiibada waxa isla fiirin doonaa filimkan ee lacagaha guud loogu iibsaday saaxiibada qiimaha badan filimkan sheekadiisa aad loo amaanay sidoo kale shan xidig afraanta lagu qiimay kordhowda majaladaha inta badan waxay siinayaan 3 xidig ilaa 3 xidig bar ay siinayaan sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan sheekadiisu way wanaagsan tahay sida daraaddeed waxa la rajayn doonaa filimkan weeg in qurux badan inuu qaadan doono ogaada filimkan waa bilingual ama luqadaha Tamil Telugu ayaa lagu daawanaa marka ugu horeysa Rambo Thini film hogaamiye ka yahay dhankaasi Tamilka saaxiibada qiimaha badan laga daawado markaan fiirno filimkan saaxiibada qiimaha badan dhulka laga leeyahay Telugu waxa lagu iibsaday sida hadda shaac laga qaad saaxiibada qiimaha badan adduun lacageed gaaraya 30 kor ayaa saaxiibada qiimaha badan Telugu kaliya loogu iibsaday sidoo kale dhankaasi Tamil markaan fiirno waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 4 kor Hindi inteeda kale filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 2 kor overseas kan suuqyada caalamkana filimkan waxa lagu iibsaday lacag gaarayso 2 kor wadarta guud filimkan saaxiibada qiimaha badan lacagta guud lagu iibsaday waa 38 kor suuqyada meesha u noqdo waxa laga rabaa inuu dib u soo lacag gaarayso 39 kor sida daraaddeed waxa la fiirin doona dhawaankii saaxiibada qiimaha badan ganacsiga uu sameeyay dhankaasi Telugu markaan fiirno saaxiibada qiimaha badan shaleeto holac ayuu ka sidoo kale shalay maalintiisa kood waxa la filay inta badan la qiyaasay hadduu dadaal estimate qiyaas horan uu sameyn doono 5 kor ilaa 5 kor bar saaxiibada qiimaha badan soo xaran laakiin filimkan dhankaasi Telugu waa cadar la xal ayuu ka dhigay markaan fiirno dhankaasi Telugu canshuurta kor saaxiibada qiimaha badan filimkan wuxuu soo xaray lacag gaarayso 10 kor ayuu soo xaray waliga jarada qayb waxay ka helaysaa min gaaray 7 kor dhankaasi saaxiibada qiimaha badan Tamil markaan si fiirin wuxuu ka soo xiray lacag gaarayso 30 lag sidoo kale dhankaasi saaxiibada qiimaha badan Hindi inta kale wuxuu ka soo xiray lacag gaarayso 2 kor sidoo kale overseas kam suuqyada caalamka wuxuu ka keenay lacag gaarayso 30 lag ganacsigiisa wax loo yaqaan dibadda filimkan saaxiibada qiimaha badan marka la isku daro wuxuu ka talaabay 12 kor ayuu soo xiray sidoo kale qolaa jilaha qabi waxay keenay saami gaaray 8 kor taasoo ka dhigay saaxiibada qiimaha badan filimkan maalintiisa koowaad tirada loo yaqaan xisaabta loo godlaha inuu ka talaabsada daraaddeed filimkan saaxiibada qiimaha badan waxa la rajayn doonaa maanta oo sabti ah sidoo kale xad oo birtooda inuu ganacsi adag sameyn doono maadaama saaxiibada inta badan filimkan dhallinyaradana aad u damaanay sidoo kale wiilka lagu magacaabo Rambo Thini hogaaminta u qaatana saaxiibada qiimaha badan inaba caadi ma saaxiibada qiimaha badan filimkan wax loo yaqaan Positive Impact ayuu la kulmay sida daraaddeed filimkan lagu magacaabo The Warrior ganacsiyada kale uu sameeyana barnaamijyada dambe ay qowgaan doontaan bal markaan saaxiibada qiimaha badan waxa aad doonaa dhankaasyo shabakada loo yaqaan box office India waxa isla fiirin doonaa filimka lagu magacaabo Chok Chok Jeo waxa loo yaqaan saaxiibada qiimaha badan 3 toddobaad tiyaatar saaran yahay ayuu dhameystay sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimka lagu magacaabo Quda Xafid Chapter 1 aan ku celiyo Quda Xafid Chapter 2 saaxiibada qiimaha badan asna hal wiigo tiyaatar saaran ayuu dhameystay daraaddeed waxa isla fiirin doonaa labadan film ganacsiyada waxyaabaha u qabsoomeen waxaan ka bilaabi doonaa filimka lagu magacaabo Quda Xafid Chapter 2 saaxiibada qiimaha badan filimkan wiigiisa koowaad wuxuu keenay adduun lacageed gaaray 9.7 kor soo xirsada daraaddeed silna ganacsigana kuma filna sidoo kale markaan fiirno filimka weyn lagu magacaabo Chok Chok Jeo saaxiibada qiimaha badan filimkan wiigiisa koowaad asna wuxuu keenay lacag gaarayso 50 kor wiigiisa labaad saaxiibada qiimaha badan asna wuxuu keenay lacag gaarayso 19 kor wiigiisa saddexaad wuxuu keenay lacag gaarayso 6.9 kor wadarta guud filimkan saaxiibada qiimaha badan Chok Chok Jeo 3 toddobaad lacagtu soo xiray saaxiibada qiimaha badan sida diiwaan gasho lacag gaarayso
75 kor iyo bar ayuu soo xiray saaxiibada qiimaha badan filimkan lagu magacaabo joog sidoo kale ogaada saaxiibada qiimaha badan filimkan lagu magacaabo joogna ganacsigan kuma filna maadaama saaxiibada qiimaha badan lacag gaarayso 110 karoor miisaanad gaarayso waxaan baarisan yahay saaxiibada qiimaha badan asna waxay u badan tahay filimkan inuu noqon doono filim saaxiibada qiimaha badan average ah ayuu noqon doonaa laakiin filimkan hadda saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisana way soo xirmi doonaa maadaama 23 bishan ku jirno dhankaas iyo bartolo yaqaan Amazon Prime Video laga daawan doono bal markaan saaxiibada waxaan soo qaadan doonaa Today History oo kala aflaamta caan kala daawaday maanta oo kala saaxiibada waxa la daawaday filimka lagu magacaabay BR kun kiya filimkan waxa la daawaday 15 July 2005 markaan fiirno hogaamiyaha filimkan waa Salman Khan sidoo kale filimkan waxa tirso kuadka gal lagu magacaabo social media sidoo kale waxa kula jira جلايش كلا صاحبة قيمها بدن كاترينا كيف نيك لو مجا سوهل قان سدو كلا فيلم كان واحد دايركتور كان نيك لو مجا دافع دون سدو كلا واحد بروديوسر كان نيك لو مجا سوهل قان صاحبة قيمها بدن فيلم كان واحد صار تياتر جارين أفر بقول كنت سلامي على قد داودي وحلو قرش جري فيلم كان ميزان جاري سنة تبنكر عمران سنة فيلم كان حسوحر العج جاري يسون شيء لا تنكر برا يسوحر سيدا دراد فيلم كان لو مجا عمين بير كيا وكون كيا وحن نقضي سمي هيدا يون نقضي صاحبة فيلم كان واحد تيجي تقص سلامي كده وسيدا الديوان قشند جاري تداوم من يسقال بقول إحنا نشان كنا وقف يتيجي تقص سلامي كده سيادرة فيلم كسلمان قن هجامية كصاحبة قيمها بدن نتيجان فيلم كان صاحبة قيمها بدن نحن نقد سمي هيد أيون نقدين لنا على صاحبة قيمها بدن تورين يسر دان في رمان توكل أفلام تعان كلا داودين ما أنت توكل صاحبة قيمها بدن وحالة داود فيلم كلا قوم جعاون زندقينا مليجي دوبارة فيلم كان حالة داشين 8 جولاي labada kun iyo 10 hogaamiyaasha filimka waa ninka lagu magac xirigta garoshan abhay dol farhan actor sidoo kale Katrina Kaifan way ku jirto ogaada filimkan waxa director-keed gabar lagu magacaabo Zoya Akhtar oo la dheerta saaxiibada qiimaha badan farhan actor sidoo kale waxa producer-ka walaalkeeda farhan actor saaxiibada filimkan waxa la saaray tiyaatar gaar ah sida diiwaan gashan 1400 shilimo ayaa laga daawaday waxa lagu qarash garay filimka miisaanad gaaraysa 60 karoor cumraantiisna filimkan wuxuu soo xiray lacag gaarayso 89 karoor bar ayuu soo xiray sida daradeed filimkan natiijaan wuxuu noqday hidna meeshan ayuu noqday markaan fiirna filimkan saaxiibada waxa tigid u goosto shaleeman ka daaw sida diiwaan gashan dad gaaray 15,500 qof ayaa tigid u goosto shaleeman ka daawatay sida daradeed filimkan natiijaan asna wuxuu noqday hidna meeshan ayuu noqday وتكون سنتين صاحبة داشة داوت المقال كعلك سنون برنامج كينا محا صوفن كينديا دايتا مركي كوغري صوب قنا جنال كينا سبسكرايب نوصار صدو كلا لوينا مقال كلاك نوصارتو أركتها كومنت نوغري قد كمنتا صاحبة هورنو للجوغي مقال كشير صاحب ونك صدو كلا جنال كوغو صوب بيران انت برنامج كان برنامج من صاحبة قيمة بنكو كل منو أما أنا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته